وحفلات بلارن وسوق جرتات سداد iyo 10 May oo la dabaaldegayay iyo waliba golaha deegaanka ee Bristol oo la doonayay in la tuso inay aqoonsadaan Somaliland sidii Shafiil baa u qoonsatay lagu qabtay magaalada Bristol xafladahaas oo soo qaban qaabiyeen xildhibaanada golaha deegaanka ku jirta ee magaalada Bristol ee Somaliland hibaaq jaamac iyo waliba saaxiibadeed Muna Gamuute iyo waliba team kale oo fara badan ayaa waxay ahayn maalinimadii kuwa la joogay golaha deegaanka ee City Council xaqiisa hore isla habeenimadiina la yimi hawdaalka Hilton oo halkaas xafladii sii socota lagu qabtay oo balaaran reer Somaliland waydinka midnimada muujiya isku tiirsada walaalaatihiin cidraafka Somalilandna waydin heli doontiin ujeedada maanta aynu halkan u joognaa laakiin waxa weeyaan inaynu xusno Somaliland Independence Day oo dhici doonta Sundayda insha Allah waxaan doonayaa xafladda quruxda badan ee ugu horeysay magaalada ee aynu soo qaban qaabinay inaan dad badan ugu mahadnaqo laakiin gaar ahaan walaashay laftayda dhabar Muna Cabdi Gamuuti ayaan u mahadnaqayaa waxaan ogaanay in aan labadayadu markaan isku tagno Somaliland wuxuu tari karnaan waxaan soo marnay jideer waxaan ku jirnay 3 bilood labadayadaana wadnaha ku haysanay waxay nagu noqotay challenge markay challenge nagu noqotay nafta waxaan u sheegnay calanka rag baa u soo dhintay marka ugu horeysa taariikh weeyaan taariikhna Ireland iskama taago iyadoo aanad maxay tar u soo dhibaatoon marka waxaan ku seexanay xalay rag baa u dhintay inaga dadku haday hadlaan waxa ma laha runtii xafladda qiimaha badan ee aan kala soo qayb galay maanta oo aan joognay dabaaldegii ka dhacay councilka hortiisa oo calanka Somaliland laga taagay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan jaaliyadda reer Bristol ee Somaliland iyagoo runtii maanta sameeyay wax taariikhda galay magacaygu waa Cabdirashiid Ibrahim Xirsi oo qabanqaabiyaashii reer Shafiil ka mid ah qoladii ictiraafkii hore Bristol qabanqaabinaysay tan maanta Shafiilna qabanqaabinaysay halka ka soo abaabulaysay aad baan ugu mahadnaqayaa warayskiisa markii labaad ku soo noqday tahay waxaan ugu soo noqday inaan si gaar ah u xuso qabanqaabada iyo isku dibbaridka reer Bristol sameeyeen ee dheeraadka ah ee haddaanu reer Shafiil aanu aad ugu faraxsanahay si calanka u saareen si calanka u taageen heesta calankay qarankay sameeyeen waxa xusud mudan oo wax aad iyo aad Ilaahay lagu mahadiyaa dawladda hoose ee Bristol oo u ogolaatay calankaas inuu 30 habeen halka ka taagnaado sanad walba bisheeda 18 May kastaba inta halka la isugu soo baxo beerta xorriyadda u bixi beerta xorriyadda ee Bristol inta la isugu soo baxo in calankii laga taago Somaliland maanta 23 sanadood bay dhisnay maanta maalin ay ka wanaagsan tahay ma jirto runtii dareenkaygu maanta farxadiisu way laban tahay maalintii Shafiil iyo maanta waxaad moodaa dareenkaygu inuu maanta si wanaagsan yahay waayo waxa muuqata in arrinkii Shafiil ka bilaabmay uu socday oo ay kubaddii hore u soconayso guusha aan dareemayo maanta waa taa hawshii aanu Shafiil Ilaahay noo fududeeyay nooga hirgashay in talaabadeedii labaad ay maanta hirgelayso Bristol calankii Somaliland la taagay waxa kaloon halkan hambaliyo uga dirayaa oon lay intii dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto oon leeyahay wan mid faataxada umara intii mujaahid u geeriyootay ee xaq u dirirka ahayd maalinteenu calankan la soo noqonaynay faataxada umara 1 minute waa aamusa please hawshan sidan inoogu bilaabatay waxaa fiican inaan laga daalin meel kastoo aanu joognana saasaan u saboodaynaa haddaan nahay beelaha direed mar walba halkaas aynu kasii amba qaadaynaa hadalka ku dheeran maayo odayaal badanna way iga dambeeyaan waxa weeyaan kala qaybsanaanta ninna dani uguma jiro waxaan leeyahay dadka reer Somaliland gacmaha haystaan dadka reer Somaliland ha isku duubnaadaan dadka reer UK gaar ahaan dalkan Ingiriisku maanta uu isugu soo baxay sanad guurada iyo ictiraaf raadisku ha noolaadaan si kastaba haatee xildhibaan hibaaq jaamac iyo tiimkeeda ayaa si weyn ugu ololeynaya sidii Bristol golaha deegaanka uga dhaadhicin lahaayeen inay aqoonsadaan Somaliland sidii golaha deegaanka Shafiil baa aqoonsaday hase yeeshee waxaa dadka maanta halkan xafladan sida ballaana uga soo qayb galay dhammaantood isweydiinayeen waftigii ballaana ee ka yimi Somaliland ee hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis iyo waliba wasiir Cakuuse
ee u yimi xafladda 18 May inay kala qayb galaan dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka UK oo laga waayay xafladda Bristol inay ka soo haadiraan haba yaraatee taasoo aan la sheegin haba yaraatee wax cudurdaara ay soo gudbiyeen madaxda Soomaaliland ee halkan ku sugnayd ee la filayay in xafladdaas ka soo qayb galaan Axmed Caawil Ismaaciil Somsa TV Bristol UK